wafdigan uu horkacayay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay dhalinyaro ka socday ururada dhalinyarada gobolka Baay iyo kan degmada Baydhabo Aadan Ali Mayow oo ka mid ah ururka dhalinyarada degmada Baydhabo oo ka hadlay soo dhaweynta gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa sheegay inay farxad u tahay soo dhaweynta dhalinyaro ka socda gobolada kale ee dalka. بسم الله الرحمن الرحيم إلى سبحانه وتعالى ما هذا كله جيك نسوري جديد أنتم حبوين قدوميها دنيارة قبل كبنادر بدايكي عبدكافي محمود مكران وجيك هديري مقارنة بيدوا مركن كهري تيس مقارنة بيدوا كوي بدايكي مرة بدنا كلوني مركن قدام بيت بين كلوني مقارنة قالكعي أولو كهذا عشان كني بدأ فرحة إني أتجيك مركلة دنيارة كفرقة بالصومال أنتم حبوين قدوميها دنيارة قبل كبنادر عبدكافي محمود مكران سيسي وقدين كفرقة بالصومال ما يبغى تدين كفيل حروايوك مركا إذا كفرحسن أنتم حرواين قدوميها معلمان نيلروج دونا وبلا تعمير خجانة معلموس نيلروج أنتم فرحتني رجال جوابه من رئيس كفرقة بالصومال عنك أنتم عطسنا والبعض من رئيس كلبشي كجوها هاي مركا خجانة أنتم اسم الرئيس ميلس رجاي أو سلها كفرقة بالصوماليا أنت همرة عارف اللي بيدو يا إيدي بيبغى والبعض ورثي اللي بيدو بلا وجه دونا. Cabdikaafi Maxamuud Makaraan oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir oo ka hadlay sida Baydhabo ay ugu soo dhaweeyeen ururka dhalinyarada degmada ayaa ka hadlay ujeedka safarkiisa magaalada Baydhabo waxa uu sheegay in Baydhabo ay ku qaban doonaan barnaamijyo lagu horumarinayo dhalinyarada. maanta farxada ay tahay oo markii ugu horeysay aan imaanayo maamulka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo Janaay dhalinyarada koonfur galbeed dhalinyarada Baay iyo saaxiibkay Aadan waa gudoomiyaha ardayda jaamacadaha ee koonfur galbeed dhammaan waxaan ugu salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane Aadan ayaa runtii sheegay waxaan ku kulannay gaalkacyo anigoo runtii aad u daneehay inaan imaado magaalada Baydhabo oo runtii la kulmo dhalinyarada ku dhaqan gudoomiyaha gobolka Baay Shaati waa nin saaxiibkay ah oo muddo badan aan wada kulannay laakiin waxa maanta ii farxad ah inaan joogo magaalada Baydhabo oo ah runtii magaalo taariikhi ah oo runtii meelo badan oo dalxiis iyo meelo badan oo runtii oo taariikhi ah ku taalo waxaan rajaa insha Allah taala soo dhaweynta ay soo dhaweyseen oo idinkaga mahad celinayaa maadaama tiin dhalinyaro Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ku dhaqan koonfur galbeed waan igula yaqaan soo dhaweynta iyo martisoorka iyo runtii maxabeynta waxaan jeclahay insha Allah taala inaan joogo muddadaas oo runtii aan yeelan doono kulamo fara badan oo ku aadan sidii dhalinyarada Soomaaliyeed loo horumarin lahaa uguna qayb qaadan lahaa nabadda iyo horumarka dalka waxaan ognahay dalkeena Soomaaliya maanta marxaladihii oo soo maray maanta uu ka soo kabanayaa wuxuu marayaa marxaladii ugu fiicneed laakiin waxa la rabaa inay dhalinyarada noqdaan dadka awoodda iska leh dalkaana maamuli karo wax badanna ka bedeli karo annaga hadda dhalinyarana waxaan diyaar u nahay inaan maamulada iyo dalkeena Soomaaliya oo dhan inaan laga dareemo inay tahay dhalinyarada awoodda kuwaad ee dalka. Assalaamu calaykum wafdiga dhalinyarada ee ka socda gobolka Banaadir ayaa qaybaha kala duwan ee magaalada Baydhabo socod ku soo maray taasi oo qayb ka ahayd soo dhaweynta ururka dhalinyarada degmada Baydhabo ay u sameeyeen dhalinyarada u soo martiday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa maalmaha soo socda waxay marti gelin doontaa barnaamijyo lagu horumarinayo arrimaha dhalinyarada oo ay iska kaashanayaan ururada dhalinyarada gobolka Banaadir iyo gobolka Baay. Cabdinaasir Musharraf telefishanka iyo raadiyaha dawladda Puntland magaalada Baydhabo.